بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الأحبة في الله وتحنهني وعوان كيسوها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. حلقذني ومدي أفراد عوان كيدنا وحنقنيا فساد اللسان. عربك مركا فسهاده الدنيا آخر ودنبا فسهادية، قلبك فسهادية، قريها فسهادية، مجتمع فسهادية، دولته ببربرية، وارير أو قفكو هدلي أي قرية كدمان ودي كداتا علادو أيكو أولشا آخر أيكو هاللوضا الدون كان أدكو سيغيسا استاد رادت أي عربك وحال يري jirmi ahaanna wuu yar yahay, dembi ahaanna iyo waxa uu geysanayana aad bay u weyn yihiin. waa xubin yar oo dhib badan weeye. qur-aanku sida uu uga hadlay bal u fiirso: maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid. weer yar qofka kuma hadlo ilaa raqiib iyo catiid baa u diyaarsan oo u darban. waa carabkaa yarka intaa la eg ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'ig u wakiishay. ولا يغتب بعضكم بعضا بركين بركة كلا يوسن حمن حقا وحلقا حنتا وعربك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أرقا إيا مقلك إيو مانك إيو قلبي قبا إني وحاسو دنقفك ومسؤول كيهي. نبينا وكان لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قفك إلهي يمال انت الدنبر رميي ama khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso. mar kale nabiga wuxuu yidhi: ina alcabda layatakallamu bilkalimati min sakhati illaah laa yulqii laha baala yahwii biha fi jahannam. qofku kal weer buu ku hadlayaa oo ilaahay ka cadhaysiinaysa, isaguna markaa uusan islahayn kelmaddaas iyada ah darajadaasay yeelanaysaa, ama uusan aadba oga fakerin kelmaddaas sababteeda ayuu naarta jahannamo ugu hoobanayaa. xadiidkana saxiixulmuslim baa soo saaray. xadiid kale oo imaamu tirmidi soo saaray nabiga wakiilaha: wahal yakubu nnaasu fi nnaari calaa wujuuhihim ilaa xasaa'idu alsinatihim. dadka ma waxaa weji loogu tuuraa naarta oo afgambooti naarta loogu tuuraa ilaa waxay carabyadoodu galabsadeen ma ogiye. ayuha alaxibatu fillaah, sidaa daraaddeed buu الإمام سفيان الثوري وحاولها: اللسان سبع إن أطلقته أكلك. عربك والدقاق هداد سيديسو أديق أيوك عنيا. علمادنا وحي هدان شيء إن لحراء الله حبسكو هبون عربا كتيرة. آفة اللسان مجلدات بلغا اللي فيه ولا الليال دقيق قدير أغمو ورمي كرناه. عربكو وحبين يرؤو دبضا oo diintaada iyo adduunyadaada iyo aakhiradaadaba fasahaadin kara. waxaa la yidhaahdaa dagaalkii khaliijka ee sadaam xuseen uu ku qabsaday kuwait, halkaa ka bilowday 1991kii, kelmad ay sadaam iyo nin kale is yidhaahdeen ayay ka bilaabatay baa la yidhaahdaa. muxuu sababay? inuu sharqul awsad oo dhan, bariga dhexoo dhan inuu gubto, inuu maraykankii soo dego, inay dhibaato ka dhacdo ayuu sababay. walaalayaal, gabagabadu waxaa weeye carabku waa xubin yar oo dhaqdhaqaaq badan, dembigiisana uu aad iyo aad u weyn yahay. qalbiga ayaa carabka lagu dhisaa, oo dikriga iyo qur-aanka aad akhrinaysa qalbigaaduu saamaynayaa. guryaha ku duma kelmad yar oo xan ah ayaa nuurka daacada oo dhan kaa qaadi karta. dhadhanka daacada oo dhan, cibaadada ilaahay dhadhankooda dhan, kelmad yar oo carabkaada ka soo fakatay oodan u fiirsanin ayaa waxoo dhan halayn kartaa. kelmad isku dir ah oo namiimo ah ayaa waxa weeye naar alcadaawa ayay hurin kartaa. reero dhan baa isku dhammaan kara, colaad baa ku huri karta, qaraabadii baa ku coloobi karta. wahaakadaa walaalayaal, kelimad yar oo laga yaabo inuu qofku si un gabay yar uu iska yidhi ayaa waxa weeye reere ay isku rogmanayaan. qofka sooman waa midka carabka ka sooma, dhagaha ka sooma, aragga ka sooma, qalbiga ka sooma, farjiga ka sooma weeye. waa midka ku camal fala
حديث القدسي وإله لها سبحانه وتعالى سيد النبي النقص وريي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه أخرجه البخاري حديثك وحو نو شيغيا إلهي وحو ليهي عملك ابن آدم كودن إساقا إسكاله soonka moogiyo soonka anaa iskale buu alla leeyahay soonku waa gaashaan oo dhibaatada iyo dembiga iyo naarta ayuu gaashaan kaaga yahay qofku hadduu isaga oo sooman maalin maalmaha ka mida isagoo sooman haddii ay dhacdo in yuusan dembi ku hadlin yuusan maaragtay fawda iyo buuq iyo qaylo iyo uusan samaynin haddii uu qof icaayo ama uu arrimahayga soo farageliyo ama uu ila dagaalamo maxaan sameeyaa nabiga wuxuu noo sheegay waxaad ku tidhaahdaa waan soomanahay daysana mi ihi adigoo kale mi ihi waxaa weeye ilaahay baan ka baqayaa xuduuddaan ilaalinayaa kuguma dayan karo carabkaygu ma daysana waxaa weeye waa xidhan yahay carabkayga nabiga wuxuu kaloo yidhi ilaahayga ay nebi maxamed naftiisu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye hawada yar iyo neeftan ibni aadanka agtooda urka ka ah ee calooshii baahneed ka soo baxaysa ee qofka sooman uu afkiisa ka soo baxaysa ayaa atyabu cinda allahi min riix ilmiski ilaahay agtiisa taasaa ka udgoon la udgiyo midka ugu udgoonoo miskiga ah qofka sooman 2 jeer buu farxayaa markuu afuro ee gaajadii iyo cuntadii ilaahay uu siiyey uu ku afuro ilaahay wuu farxayaahoo waxaa weeye in uu cibaado gutay buu ku farxayaa ilaahay buu u mahadcelinayaa oga mahadcelinayaa risqigan iyo cibaadadan uu waafajiyey iyo afurkan wax uu ku afuraya uu siiyey markuu rabbigii la kulmana soonkiisa ayuu ku farxayaa sidoo kale walaalayaal xadiid kale oo imaam bukhaari soo saaray nabiga wuxuu leeyahay man lam yadac qawla الzuuri wاlcamala bihi falaysa lilahi xaajaة fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah qofka aan ka tegin hadalxumada iyo ficilka xun hadalka xun iyo ficilka xun aan ka tegin ilaahay danka ma leh inuu cuntada iyo cabitaanka uu ka soomo axibatii fillaah soonku marka ma aha inuu qofku inuu gaajoodo bal waa inuu dadka nabadgeliyo carabkiisana uu haysto weeye carabka inuu qofku carabkaada in laga badbaado weeye bal isku day bishan ramadaan inaad iyo bisha oo dhan aadan ku hadlin hadal xan ah hadal isku dir ah hadal ma aragtay fadhi ku dirir ah ogow saddex arrimood mujtamacay dumiyaan waa xanta iyo isku didirka iyo namiimada iyo been abuurka iyo buhtaanka doodan iyo fadhi ku dirirkan iyo waxaan oo dhan bishaada ka foge oo ka tahir isku day inaadan waxaan maanta social media lagu soo harqiyey inaadan wararka ka mid ama waxa la isdhex wado inaadan faafinin adiga oo aanan hubsanin hadduu khayr yahay haa laakiin haddii uu shar yahay ama dhibaato yahay ama aadan hubinba qofka shar waxaa ugu filan in wixii uu maqlay uu sii gudbiyo maxaan qabtaa miyaan iska fadhiyaa ma gacmahan xidhaa maya aliktaaru min dikrillahi ku mashquul ducada ilaahay ku mashquul ma baagamuudaa tahay inaad dad wax ka sheegta maxaa kuu soo arkay inaad dad xamata maxaa kuu soo arkay inaad dad isku dirdirta maxaa kuu soo arkay fadhi ku dirir maxaa kuu soo arkay ma howla-aan baa tahay bishii khayrkaad ku jirtaa bishii wanaaggaad ku jirtaa bishii ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa laga faraqabsanayay baad ku jirtaa qofka mujaahidka ah acdamu mujaahid midka ma aha cuntada ka afhaysta ma aha midka gaajada u adkaysto keliya ma aha bal waa midka weedha iyo kelmadda ka adkaysta weeye midka sabro weeye midka carabkiisa ka adkaada weeye midka waxa weeye waxa uu odhanayo 1 jeer ka fakara weeye marka carabka bisha ramadaan waa madrasada iyadana carabka ayay tarbiyeynaysaa dhaqankeenna ayay hagaajinaysaa waxa weeye waa tababar aynu ku tababaranayno waxaana la doonayaa bisha ramadaan markay inaga dhammaato
annaga oo adigoon qofkii hore ahayn inay kuu dhammaato, adiga oo tababar soo qaatay inay bisha kuu dhammaato ayaa la doonayaa. fasaadkana aynu iska ilaalinno. ilaahay wuxuuna leeyahay walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa wadcuuhu khawfan waطamaca ina raxmat allahi qariibun min almuxsiniin. ilahay waxaan ka baryaynaa inuu ramadaanka naga aqbalo, carabkeennana kuwii ilaaliya inuu naga dhigo. allahuma aamiin. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.